كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعشركي لبقولي صدني سديداد قيبتي لحاد dardaaranada iyo ducooyinka ee barnaamijkeena barbaarinta ubadka weli dardaaranadaynu ku guda jirnaa. maanta waxaan qaadan doonaa ka 25aad iyo dardaaranka 26aad iyo ka 27aad iyo ka 28aad. dardaaranka u horeeya marka 25aad waxa weeye alxirsu cala almadhari alkhaariji litifl. waalidku inay ku dadaalaan ilmaha waa maxay muuqaalkiisa sare. waxyaabaha waxa la barbaarinta marka la sameeyo muhiimka waxa ka mid ah baa la yiraahdaa macnaha ubadka in la hagaajiyo oo la qurxiyo, macnaha waxyaabaha ay xiranayaan oo kale, timahooda oo kale. sidoo kale waxa la maxay markay ay inamada yihiin ama ragga yihiinna iyagana waxa la markaa raganimadooda marka in maxay kor loo qaado oo marka waxa markasta laga fogeeyo waxyaabaha ama macnaha ay maxay uga ekaan karaan ka shabihi karaan marka dumarka laga fogeeyo. sidana waxa hablahana waxa marka dhinaca markay noqotaan iyaga waa in lagu tababarayada macnaha asturnaanta iyo xijaabka iyo xishoodka iyo waxyaabaha wanaagsan marka inta yaryar yihiinba markaa. iyo sidoo kale marka in maxay asturnaanta loo sameeyo wayn kaanat sagiira marka haddii xataa marka yartahay xataa in lagula dadaalo lagu tababaro inay markaa jirkeeda iyo madaxeeda waxa marka waa maxay ay asturto markaa. sidoo kale waxa la yiraahdaa waa in ubadka ama maxay laga fogeeyo ama laga ilaaliyo macnaha mariyaha ama waxyaabaha markaa suurada ama sawirada marka ay ku dhegsan yihiin waxyaabaha ilmaha waa maxay ka fogeynaya malaa'igtu marka waa maxay inay ka fogaato marka keenaya oo sawiro iyo xabay ku dhegsan yihiin oo malaa'igtu marka waa maxay aan soo dhawaanan guriga marka waa in laga fogeeyo. sidoo kale waxa la yiraahdaa waa in ubadka laga ilaaliyo baa marka dhaqamada marka reer galbeedka marka ama gaalada oo kale haday noqoto marihii ay xiran lahaayeen marka way noqoto mariyo marka sharci oo qofkii ilmihii ubadkii waasic ku ahaa ku maxay aan ku dheganin ama aan dib u keenin. sidoo kale marka waa maxay noqoto qaabkii style-kooda marka haday noqoto qaabkii tibtimaan u jaran lahaayeen oo kale, qaabka u socon qaabka u hadli lahaa waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha xidhan lahaayeen oo dhan everything wax kasta waa maxay waxa la waanayna marka waafaqsanaanin ama aan la mid noqon baa leedahay qaabka reer galbeedku marka ay u nool yihiin. wadku inta ay yar yihiin waxa la yiraahdaa waxa aad u muhiim u ah in markasta lagu tababaro waa maxay dhaqankeena quruxda badan ee diinteena islaamka marka ay farayso ee noo sheegayso amal kasta marka ay sameynayaan marka especially waxyaaba muuqaalkan sare ilmaha soo muuqanaya hada jirkiisa haday noqoto haday marihiisa haday noqoto haday wuxuu macnaha timihiisa marka ay noqoto in marka waa maxay aad loogu dadaalo waxa weeye macnaha waa maxay waxyaabaha wanaagsan marka islaamka inuu waa maxay barayo. dardaaranka waxa weeye 26aad waxa weeye الفروق الفردية بين الأبناء. إلهي سبحانه وتعالى dadka markuu abuuray dhamaantoodba farqa baynahum fil mawaahib wal qudraat. ilaahay hibooyinka uu dadka siiyay iyo awoodaha uu dadka siiyay way kala duwan yihiin marka qolaba qolyaha kale ama qof kale marka waa maxay uu ka duwan yahay marka sida dadka marka jirkooda uu kala duwan yahay ama muuqaalkooda dadka waa maxay uu kala duwan yahay ayaa waxa la yiraahdaa marka dadka garaadkooda iyo mawaahibta ay leeyihiin ilaahay qof waxba hibo u siiya qof waxba ku fiican yahay nolosha qof laga yaabo in waxbarashada ku fiican yahay qof laga yaabo in baabuur kaxaynta ku fiican yahay qof laga yaabo in dadka caawinta ilaahay waxay hibo u siiyay qof waxba ilaahay waxay marka waxay u badiyay oo hibo u siiyay marka taasi waxay ku kala duwan yihiin marka waalidku waxa looga baahan yahay macnaha ubadka dhexdooda inay ogaadaan marka oo saa ay ula socdaan waxa marka ay ilaaliyaan ama ay soo saaraan mawaahibta marka qofka waa maxay ku jirta iyo awoodaha qofka waa maxay ku kaydsan marka iyaga taa maskaxda ku haynaya inay kala duwan yihiin oo ubadkii hal wuxun marka waa maxay aan laga wada fakarino hal wax inay marka dhamaantood isku mid yihiin hal mar loo wada jiro qof waxba ku fiican yahay qof wax waa maxay u ka saro maxay u qaban karaa marka. dardaaranka 27aad waxa weeye muraacatul maraaxil al-umriya taa hore meedina u soo dhowdahayo waxa la yiraahdaa ubadka da'dooda macnaha da'da ay marayaan iyo age-kooda waalidku marka waxa la yiraahdaa waana marka waa maxay ay marka ilaaliyaan marka oo age kasta markuu marayo waalidku waa maxay waxa laga rabaa waa maxay waxyaabo waxa laga rabaa khaas marka
وصار هدو ilmuhu maxay aad maxay daadsahan ay u kooban tahay oo kale masalan ama age-kiis uu yar yahay 5 sano 4 sano haduu meelaha jiro inta ugu badan waxay sameeyaan taqliidka oo kale inay wax macna qaliidaan oo kale qofkaas wuxuu sameeynaya ka daba sameeyaan oo kale markuu 5-6 meelaha soo gaarno waxa la yiraahdaa isku daya inuu isagu iski u sameyn karo wixii uu wax qabsan karo ha isku daya waa la yiraahdaa hadii macnaha wax la yiraahdo inta ka soo weynaadana inta badan waxa la markaa waxa u fiican baa la macnaha ay jecel yihiin la hadalka in la hadlo waxa la sameeyo oo loo naxariisto oo la maxay la daryeelo waxa markaa jecel yihiin baa markasta marxalad kasta way waalidku bartaan tan muxuu ilmahana waa 5 jir kana waa 10 jir labadan maxay macnaha kan maxaan u sameeyaa kaas maxay xad xoog u saaraysaa markaa dardaaranka 18aad waxa weeye الحذر من بسط المشاكل العائلة أمام الأبناء waxyaabaha dabiiciga ah nolosha waxa kamid ah qoyska halka jira ama reerka diwaa maxay ama guriyuhuba in khilaaf markaa uu iska yimaado oo iska diwaashka waxyaabaha dabiiciga markaa nolosha ah hadaba markay dhinaca ubadka noqoto waxa la waxyaabaha ubadka maxay qulubtooda ama nafsadooda waxa la markaa wax dhibaato soo gaarsiiya ama wax la mustawayaadkooda cilmiga waxyaabaha ay dhiganayaan nolosha qabsanayaan hoos u dhiga baa oo daciifiya oo waxa la yiraahdaa markaa waxa kamid ah baa la yiraahdaa labada waalid markaa khilaaf markaa u dhex jiro ama maxay iskhilaafsan ama ishaya waxa markaa guriga meesha ay joogeen ay si bedesho baa la markaa meel qayla iyo buuq iyo dawda markaa ilmihi cabsi iyo khoof markaa waa maxay ay ku keento marka waxa la hadaba si waalidka waxa la yiraahdaa markaa nafsadooda iyo waa maxay shucuurtooda iyo waxbarashadooda iyo noloshooda ay si ismooda ugu socoto fiican oo qurux badan وين وارد waxa la ay ka digtoonaadaan markasta ay waxa la iska ilaaliyaan macnaha khilaafaadka waxaan ka wada macnaha maxay mashaakilka guriga dhexdiisa maxay ka jira in markaa maxay ay ka fogaadaan ayaa markaa loo baahan yahay intaas afarta qodob insha Allah ta'ala waa maxay ku joojin doonaa waan sii wada doonaa insha Allah wali dardaaran hadii Ilaahay ka dhigo wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam